sida qof loogu xiisogeliyo wada sheekaysiga. Dhammaan bani'aadamku waxay iska rabaan inay waqtiyada qaar qofka u xiisaan. Waa micno darro weyn maalin walba in halkii waddo lagu dhaqmayo. Mararka qaar waxaa lagaa doonayaa inaad isbeddel samayso oo qofka aad ku beerto xiiso iyo dareen rabitaan ah. Waxaan maanta ka hadlaynaa sida qofka ku xiisogelin karto, gaar ahaan waqtiyada wada sheekaysiga ama fariimaha waqtiyada la isku diro, waqtigay doonaanba ha ahaadeen. Marka hore, muuqaalka like garay si aan asxaab badan u helno. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waa inoo dhiirigelin. Aan ku socono muuqaalkeena maanta. Number 1, mar walba ha noqon midka fariimaha ku hormaro. Haddii aad horey u samayn jirtay arrinkan oo aad adigu mar walba ku horeyn jirtay fariinta subax wanaagsan, habeen wanaagsan iyo wixii kale aad u diri jirtay, markaan shibka dheh iyaga ha kaala soo hormaraan. Ma ogtahay dadka inaysan jeclayn maalin kasta inaad meeshii shalay aad taagneed inaad taagnaato? Taasi waa laga fiican yahay. Waxaadna u baahan tahay inaad qofka siiso waqtiyo ay ka fekeraan. Waa inaad u dhaqaaqdaa sidii aad ku xiisogelin lahayd qofkaas. Number 2, ereyo waali ah isticmaal. Haddii aad barfeelkeena kanaalka aad gudaha u gasho, waxaad soo helaysaa muuqaalo badan oo ka hadlaya ereyada romansiga ah ee ku habboon shukaansiga. Marka maxaa kuu diidaya inaad wax badan ka faa'iidaysato aadna isticmaasho ereyada kuwa ku anfacaya? Tan maxay kuu soo kordhinaysaa mid gaaban. Qofkan maalinta dhan hadal caadi ah ayaad u isticmaashaa, ama tusaale kale, shalay wixii aad ka sheekeynaysay maantana ugu celinaysaa. Taas maxaa ka soo kordhayo? Meeshii lee taagnaanaysaan, waana lagugu caajisaya oo keliya. Caajis keliyana ma ahanin, qofkaas ma ku dareemayo wada sheekaysigaaga deganaan. Marka waxaa sii dheer in lagu dhibsado. Ma ogolaan lahayd adiga in lagugu dhibsado arrinkan? Haddaba jawaabtaadu waa maya. Marka maxaa kuu diidaya inaad update iska dhigto oo aad muuqaaladeena, gaar ahaan kuwa ereyada romansiga daawato, islamarkaana aad isticmaasho ereyada kuwa ku anfacay? Number 3, hadday inta badan mashquulsan yihiin, waxba ha togtogin. Ma ogtahay ragga iyo dumarka waxa kale ee caajiska u sii keeno? Way mashquulsan yihiin ama way mashquulsan tahay. Fariimahaaga shib ayay ka dhaheen ama koolka xitaa way iska inkireen, mana kuugu soo celin. Kadibna intaad xanaaqday ayaad fariimo badan u diraysaa ay ka mid tahay, haye qof kale ayaad heshay ayaan u malaynaa. Kheyr badan. Habeenka ha ku wacnaado, maalinta ha ku wacnaato, qoftaas aad la sheekaysanaysa leh ha ku ahaato, iyo wax kale. Waa midda ugu badan ee lagaaga yaabi karo adiga. Ma waxaad ogtahay waxay ku sugan yihiin? Maxaad ka ogtahay inay salaad ku jiraan xitaa? Markaa degdega waa laga fiican yahay. Shib isaga dheh. Xoogaa hadday kasoo wareegto 90 daqiiqo ama 1 saac ugu yaraan, ayna weli shib kaa yihiin, iska seexo. Marka talo hadduu qofkaas shib kaa dhaho, waxaan kuu siinayaa, haddii qofkaas shib kaa dhaho, aadna shib ka dheh. Ilaa waqti kadib, hal fariin u dir aad ku weydiinayso maxaa kugu dhacay. Kadibna haddana fariin kale ha qorin. 4, waqti sii qofka. Tusaale ahaan, maanta la sheekaysatay, caawa camal ka wareeji ilaa ay iyaga ka gartaan inay ku soo wacaan. Haddii ay ku garan waayaanna, ha sii raadin, shibka dheh ilaa habeenkaas oo dhan. Laakiin hadday ku gartaan ay ku soo raadiyaan, meesha ka wad. Mararka qaar in jaanis la siiyo waxaa ka dhalato xiiso badan, laakiin maalinta oo dhan wada hadal. Intaas maxaa la sheegayaa? waa yaabay. Maxaa soo kordhayo? Qofka waqti sii uu ku fekero. Mararka qaarna hadalka u kala wareeji oo nidaam cusub la imow. 5, yaan lagu fahmin adiga. Gaar ahaan ragga, weligaa iska ilaali gabar inay ku fahanto, gaar ahaan dabeecadaada oo dhan ay fahanto. Hadday ku fahanto, noloshaada dhan ay akhrisatay. Waqtigaa dadka wacdo, waxaad u baahan tahay, waxaad ka hadasho, meelaha aad muhiimadda siiso, waxa hadafkaaga iyo kuwo kaloo badan. Ma ogtahay haddii qofka sidaa u dhaqanto oo dhan u barto, aadan weligaa waxba ka soo kordhinin qofkaas, xitaa ugu yaraan aadan xiiso gelin karin. Tusaale, weligaa waxaad wici jirtay habeenka 4 saac iyo xoogaa. Waxay baratay waqtigaas bis inaad soo wacdid. Marka xiga, waqtigaas ay ku talagalee oo xiiso ma dareemayso, laakiin kadisi wuxuu keenaa xiiso. Tusaale gaaban,
habeenkii ayaa wici jirtay, laakiin maalmo qaar ayaa u dhexgelisay galab. way la yaabaysaa dumarka, idinkuna iska dhaafa wiilashan aad maskaxdooda akhrisanaysaan. 6. faham nooca wada sheekaysi ay iyagu xiiseeyaan, kadibna waqtiyada qaar u dhexgeli, laakiin mar walba ha ka sheekayn midaas. tusaale, gabar ayaa xiiseysa inay mar walba dhegaysato sheekooyinkaaga nolosha. uga sheekay, laakiin qayb u sheeg, kadibna ka soo wareeji, haddana maalmo kadib qayb u sheeg. taasi waxay badin kartaa xiisaha lagu qabo, waxay badin kartaa xiisaha loo hayo sheekadaada. ha noqon mid mar walba laga xiiso dhaco sheekooyinkiisa. 7. ka tag iyagoo aad kugu baahan. muujinta shucuur jacayl oo wax badan la muujiyo micno samayn mayso ilaa qofka laga tago iyagoo kuu baahan mooyaane. waxaan isleeyahay in xoogaa midaan u baahan tahay faahfaahin sax. waxaan la jeedaa qofkan waad la sheekaysanaysay, sheekaduna waxay ahayd mid xiiso badan, aad ayuu la dhacsanaayeen. waxaad odhanaysaa mashquul ayaan ahay iyo yaraysu, kadibna waqti allaala waqtigay noqoto ayaad u laaban doontaa adigoo muujinaya inaad ka xun tahay soo daahistaada, laakiin ay xiiso kugu haysay inaad u laabato iyaga. ma aqaan had inaad fahantay, laakiin ogow qodobkan wuxuu ka muhiimsan yahay intaa kuu sheegay oo dhan. tan kale waxaan kaa ilaaway, mar walba sidaan ha samayn, haddii kale caqabad ay noqonaysaa. hana ka hadlayn 3 qodob ay ugu horeyso waqtiga aad soo laabanayso ama aad dib u furi doonto wada sheekaysiga. qodobka 2, ha u sheegin waqtiyada jaaniska heeso ama aad soo wacaysid. qodobka 3, waqtiyada aad la joogi doontona ha u sheegin. tusaale ahaan, waxaan kula sheekaysanaa saacad ama daqiiqo, sidaa ha odhan. tamaam. 8, xadid waqtiyada aad mobilka isticmaasho. ha ogaadeen inaad dadka ka duwan tahay oo aad tahay qof in badan howlo ka dhacsan yihiin. maxaad ka faa'iidaysaa inaad maanta oo dhan qofkaad hortaagnaato oo aad video call iyo call caadi aad waqtigaaga ku lumiso? iyaguna way ku daalayaan, adiguna waad ku daalaysaa ood ku caajisaysaa. marka maxaan ku leeyahay, waqti kooban sii mobilka, waqtiyada kalena noloshaada wado oo howlahaaga kala qabso, iyaga un meel ha u fadhiisan. hey adiga, hadda waad fahantay sax? asxaabi reer magaala inaad noqotaan ayaan rabaa. qodobka 9, aan ku xasuusiyo muuqaalka xaqiisa inaad siiso. qodobka 9 wuxuuna leeyahay waqti kadib ka jawaab fariimahooda. waad ka dhigi kartaa mid ay kuu xiisaan iyaga, ayna dareemaan xiise aad u weyn, sidoo kalena ay dareemaan shucuur xiiso badan. haddii ay kuu soo diraan fariin adiguna aad tahay mashquul, ha isku mashquulin, waqtigaaga jaaniska hesho u jawaab. muhiimadda ah, qofka adiga kuu baahan ma tegaayo, way ku sugayaan intay awoodaan. ha isku mashquulin inay kaa tegayaan oo kale, iyo aamin aniga ma kaa tegayaan, sababtoo ah xiiso un ay dareemaan. markay u muuqdaan mid ay iska soo dabadirayaan fariimaha, waa hubaal markaa iyaga si dhaba ay kuu doonayaan. sidaan u qor, cafwan waan yaro mashquulsanahay, wax yar bis. qodobka ugu dambeeya 10, waxyaabaha aad doonayso raadi. qodobka kani waan soo koobayaa. waxyaabaha adiga aad danayso wuxuu noqon karaa akhrinta buugaagta, ama aad jeceshahay inaad iska daawato tv-ga. ha u joojin, waan ogahay inay waqti u baahan yihiin, laakiin qorshahan waa limited, keliya qof una ayaad xiise gelinaysaa. marka muhiimadda ah inaad yaro dareensiiso xiise badan, heer ay niyadda ka yiraahdaan ha fasixin marka xigta. muuqaalka maanta waa intaas. I hope inaad fahanteen kana heli doontaan insha allah. sidaas haddee tahayna nagu dhiirigeli like-taada iyo inaad ku sabiirto kanaalka. until we meet, ciao ciao.